أمركو أما نينها نقضه أما وحكلها نقضه أمركو حلي حدود حد بولي حد كيس إن كجودبته مع الله بعنا هنجبات دي أجولي عقلو شو عيب لا عيب بعض أوه بايتاس عندنا أنت قول لو سوق هذا ماشي اللي بكينين قفل بقى هجيس النظام يقروح يا شرف على وصول شرف دي هذا تكون ولا كرويدو ويلي جا شارك على السينين هو قلاني دي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خارج فريق مكساديات كجوتنا ديات بني سنة ورالكن عاد شام برا بعدي وكلتي مكساديات بعض ما تصدق إذا وشرت فيديو كل مكساديات كجوتنا مدة صومالات مدابين وتايم بدأ مالون تايم بدأ مانتو حديد شيء وقت في عنه ونكسن إن شاء الله ما أنت واحد في العلين كسميت دونا إن شاء الله بإذن الله الكريم نمعن هلا إساءة تجاهدنا إن شاء الله بإذن الله الكريم ورا أبغى أقول أقول عليه أقول أما أنا هو حاربون سبيدي ما فهمت وعدي عياروري هبين قور والبابا أكتر هذا كم موقد هالكاسون معنا جيت قال لي وحويات حريف أنا أنت مدي هالشيء أنا اللي أقول عن قشة شو كم قبل كل كتير الكاك المقبل كتير ميل بلا عبق مسودي كتير يبل برا كتير حساب عد وين معناها on حاجة ولا حلا حد ولا هاي sidaan hay adoon kaaga amar qaata ilaahum baa adoon loo noqon karaa qof balaadmi adoon looma noqon karo nolosha noocaasina asalka waxay yimaadaan marka laga badbadiyo macnaha qofka binaadmiga inuu ka badbadiyo ma marka qofka binaadmiga la nooshahay inaad ka badiso ma xuduud buu leeyahay xuduudda istaag laakiin hadda wax kasta oo isagu uu leeyahay hataa waa fulinaya hadhow tolo maxaa imanaya amarku ama nin ha noqdo أما وحكلها نقض أما كل حلي حدود حد بولي حد كيس إن كجودبته مع الله بعنا وحد كيس جود بينا ما ناس بارو دقتها صوبتنا حدا أديكوا حد كجودبته حدود لو قلت لك عليه أطلع في صوب حد وطوله وحنا وحبلا قبل كريم مركب وحوبها هي وحولبها وحوبها هي حدود هستني مركب وجيت كي وما هنون إن كذا صلا وقف ولا معنا وجه كليه يلين كرسا أو هذا أنا خلوا سعد علي كريم ودعك كذا إني وجه كلا لا يداي لكن جيت كني قوان كفى من وحوي قف نولشيسا معناها قف وهو جالسن ويقعن أما قعن وكهيو هبحن هجوجن هدقاقن جو جا تاسنا كم جيت شرعية نلش كمان لما أدون كني قفكي
buuxa iibaan qofka xaqa yaqaana bini aadanimadu waxa yaqaana nolosha yaqaana dadnimadu la daristay diin iyo dhaqan leeyahay qof ma dulmiyo macnaha ujeedo waa taas marka qofka bini aadmigii noloshu waa deganaasho noloshu waa qurux noloshu waa karaamo ilaahay qofka ugu talagalay inuu ku noolaado qofna karaamadiisa inuu iska qaadana haybadiisa ma qofka bini aadmiga la nooshaana ixtiraam buu ka mudiyaa ixtiraamku hadduu dhaafo waa inuu xadkiisa ku joogaa ha ka ogolaan inuu dhaafo meesha loogu talagalay xadka ilaahay u jaray qofna ha ka ogolaan inuu dhaafo olyiinkaas macnaha waxa weyn hanjabaadi agajugli xagaluso قايب لاي حاجات عيال بعض حاجات اهو وايتاس عندنا انت قول لو سوق هذا ماشي اللي كاينين قف والبا هجيس النظام يا قروح يا شرف على وصول شرف يا تكون ولا كر ويدو ولي قاشار كا عسينين هو قلالي دي هيغا اوهين ايمان اون غارو abaalkayga ana waxa weeyaan qofkii binaadmiga ahaa ee nolosha qurux badan soo wareegtay ee meesha noo timiday ama wiil haw ama gabar ba haw labada dhinacay doonto ka iman kartaa maantuna qofka dumarku kuma iman karto ninkana ka iman kartaa marka ujeedku waxa weeyaan qof qalbi aad jecleed u niyad sameyd u han weyneyd wax walba oo noloshaada kamid ah aad hor dhigtay haddii uu kugu noqdo shabeel yaraad korsatay ka waran soo ku jijiyo meena qorsa maya oo wax aan qurux badnayn xaqeeqata noloshu marka kuma fiicnayna ka ku jirto noloshu ku fiicnatay open furnaamay ku fiicantay wiil iyo gabadhba nolol qurux badan oo furan markaasoo qoysku qurux badnaan kara ubax qurux badan ma ka soo bixi kara indhaha bini'aadmiga ay ku doogsadaan farxad badan iyo wax wanaagsan baan ka soo baxay markaas waxana lagu macnaha marka lagu daro in labada qof ee bini'aadmiga ay noqdaan laba qof oo Allah ka baqa midkiisa kale u dhawro sharaf iyo karaamo ku noolaada umada dhexeeda iyo Allah agtiisana waxay ka heli doonaan sharaf markaas aad iyo aad ma sidoo ma soo leedahay markaas aad ka joogtiin walaalkan Ali Shaama assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh